بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ahay qadiijo cumar sheekh cali qadiijo cumar key ku magac dheer waxaan ahay gabar Soomaaliyeed muwaadinad ah dhibaato nagu haysto magaalada Xamar oo gurigeeni anaga lahayn naloo haysto oo shaatiga dawladda naloo soo gashto nala soo hujuuwaay aniga waxaan ku dhashay isku raran gurigeeni isku raran oo ku yaalay degmada waa bari 1974 kii la dumiyay 75 buulixuwe xaafadda la dhaho degmada wada jira gurina laga siiyay gurigaas oo aabahay ku qornaa gurigaasaan dhisanay 75 waa degnay 75 up to now gurigaasaan deganahay oo ku yaalo buulixuwe 2014 markay ahayd aan la soo weeraray waxay dhaheen gurigan waxa iska leh marxuun dhintay maxamed xaashi cilmi la dhaho adicidii dacwad isaan isku daba ordeeni maxkamadda sare guriga anaga noo xukuntay anagan marqaatiyaal iyo darisaan haysanaa ilaa isku raran ilaa hadda aan daris wadanahay gurigeena anaga loo xukmiyay kiiska waa la xiray hadan 2015 kiiska hadan abiil qaateen kiiska waa la furay up to now kiiska waa la socdaa maalin badada noo imaado marka hore naaga noo imaanayeen dacwada waxa bilowday ruqiya jaamac garas iyo saamiye maxamed guure iyo cabduqaadir jaamac aadan oo wakiil ka ah dhaxaltooyada marxuun maxamed xaashi cilmi adiga dacwadan hadda waxay socotaa sanadkii 8aad hadda noo bilaabatay hadda bishii rabadaankii aan la soo weeraray gurigeeni cagafaa la keenay waxaa la dhahay guriga ka baxa haddii kale waa la idinku duminaa guriga waxaa wakiilka ah oo aan ku soo dhaafay ilmahayga ciddoodaasoo haysta guriga aan ku soo dhaafay warqad Brussels aan ka sameeyay safaaradda Brussels oo wakiil dumaashiday ilmahayga eedadood gurigeena wakiilka ah waxaa la dhahaa Safiya Cabdulaahi guriga waa loo imaaday wixii waraaq ah miiska soo saareen maxkamaddu way xiran tahay lockdown ka jiro magaalada Xamar meel ma furno markaas ay dhaheen waa inaad gurigan degdeg ooga baxdin waa la duminaa waa la orday gobolka Banaadir la aaday arinta dib loo dhigay guddi ha loo xil saaraa la oo arintan soo baarto arintii guddigii asagoo aan sugeyn inuu guddi imaado oo arintan la baaro ayaa haddana shalay weerar lagu soo qaaday hadda beri oo sabti maanta jimco waay aan soo duubay clipka beri oo sabti gurigeena weerar lagu yahay ninka hadda noo imaaday oo guriga wakiilka ee waa nin cusub kuwa arki jirnay maaha waxaa la dhahaa Axmed Cabdi Iirada la dhahaa madaxtooyadu ka shaqeeyaa madaxweynaha farmaajo in adeerkiis waay gurigan aabahay 74 isku rarna laga soo dumiyay aabahay qaali oo wuxuu ka ahaa dawladda hoose Cumar Sheekh Cali yaa la dhahaa waa la wada yaqaanaa marka guri anaga more 45 years dhisan in maanta la dhaho gurigiina maaha ka baxa waa la duminaa ka guura anagana ma qabato xaqan ku leenahay wadanka waxaana loo adeegsaday awood iyo shaatiga dawladda maadaama aad tihiin aan la dhahay dad cad waa in la idin dhacaa maxkamadda waxay noo xukuntay 5 goor way noo xukuntay waa la xiri kiiskeeni haddana hal sano ay soo maqnaadaan abiil ay qaataan way furaan marka hadda anaga waxa u xukumay hadda maxkamadda ayaga nin hadda oo maxkamadda sare joogay wuu baxay Hargeysa aadi magaciis ma aqaani ninkaas u xukumay hadda warqadda ay wataan Febraayo u sameeyay maxkamaddu way xiran tahay abiil ma qaadan karni wax ma sameeysan karni lockdown magaalada ka jiro marka waxay dhaheen guriga waa ka bixaysin degdeg guriga waa la duminaa dhulkaan leenahay hadda taagiin anaga iyo labo boos kale oo nagu dhagan waay dadkan cad waaya la dhahay hal dhaco anaga cad manihi Soomaaliyaan nahay Soomaalina wadanka waa u siman tahay marka dawladda sharafta leh waxaan ka codsanayaa gurigeena wax waaye xaqaan u leenahay anaga iska leh dawladda Maxamed Siyaad Baraan siisay waxa noo gooyay oo noo cabiray mudane Xasan Abshir wuu nool yahay 74 waana la yaqaanaa isku raran ka soo guurnay marka in gurigeena dheedheeshaas loo qaato qalad waa cidda hadda hayso guriga wakiil ay ka yihiin Brussels warqad ooga sameeyay waa ilmahayga reerkooda guriga noo hayaan
aniga waa bixi lahaa December xamaraan jiray wax dacwo ma jirin markaan soo bixay dacwada bilaabatay haddana lockdown jiro dayuurad haday furanta waa baxa marka waxaan ka codsanaa dawladda inay codsigeena noo tixgeliso oo gudina loo saaro aniga daris xalaal ah buuxa xaafada ilaa isku raran aan daris ahayn way wada joogaan gurigeeni waraaqaheena waa haysanaa marka waxaan lagu haysto waa awood marka dawladda waxaan ka codsanaa inay arintaas wax ka qabato qofkii u baahan inuu ila soo xiriiro waxaan deganay magaalada London Khadiijo Cumar Sheekh Cali yaa la dhahaa wabilaahi tawfiiq waxaa la dhahaa Maryam Maxamed Cabdi waxaan deganay xaafada Buulxubey gaar ahaan Tiitiinley waxaan darisnahay gurigan dacwada la isku haysto oo reer Cumar Sheekh Cali ay leeyihiin aniga ayaga waxaan hay safka ka soo horjeedo waxaana noo dhaxeeya hal boos oo trade ah noo dhaxeeya kaasaan anna ka soo horjeedo ayaga dhinaca ka saaran waxaan marqaati galaa oo ilaahay wajigiisa bari maalinta qiyaamada ii haysta heer Cumar Sheekh Cali in laga soo dumiyay isku raran oo booskoodii isku raranna kan loogu bedelay ay degeen ilaa intaan Buulxubey deganayna aanan cid kale u aqoonin oo sidaan idiin sheegayo iyagu aad qolka laba irdoodka ah qolkaas laba irdoodka ah wuxuu u ahaan jiray dukaan 77 ilaa qixi waxay gadi jireen barafka waxay gadi jireen jalaatada hawl badan ay qaban jireen waxaan kaloon marqaati furaa in guriga ku dhagano sidoo kale ay reer isku raran ahaayeen kan aniga iga soo horjeedo kan ku dhagan inay isku raranna daris ku ahaayeen oo say u wada deganaayeen loo soo wada fujiyay oo halkaas loo dajiyay waxa ama ka iyo yaabnugu noqotay ninkii la lahaa iyo sheeg magaciisa golaha sare kacaanka kamid ahaa Calimataan Xaashi oo golaha sare kacaanka kamid ahaa yaa la yiri walaalkiis Maxamed Xaashi oo asna korneyl ahaa sidaan maqlay aniga ma aqaano laakiin Calimataan nin la yaqaano oo golihii sare kacaanka kamid ahaa faamilkiisi 74 hadii loo jaray waxa marqaati laga yahay xilligii Maxamed Siyaad Baradhul la dhaca inaysan jirin waxa marqaati laga yahay oo sharci ka yaala haddii qofka sanad ku dhisan waay in laga celin jiray dhulka isla markaasna dad la siin jiray dhulkan asagoo iska banaan aan qofkaas la siin ma dhigi karo hadii ay jirto dhulkan asagoo iska banaan dhulka dhul dawladeed oo lahaa shakhsi ma lahayn dawladdiisa dib uga celisay sharciyaana ka yaalo xamar oo dhan aan ku dhisan dawladda ma noqsan jirin waa macruuf sabraloogi koowaad ay bixiyeen balse waxa shaqeynaya kii dambe shaqeynaya waxaan ilaahay hortiisa aan marqaato ogahay in bulukeetigoodii oo laga soo dumiyay isku raran ay ku dhisteen gurigan iyadoo la raraa ay keeneen ayaga ay dhisteen ay degeen yaan marqaati cad ka ahay waxa la yaab leh in xilliga burburka ah 7 sano ilaa 8 sano muddo ay hadda ku socoto la leeyahay dadkaas lahaay Maxamed Siyaad Bare xilgiisa guri la dhacay ma jirin nin golaha sare kacaanka iyo nin ciidan ee ma jirin mana la aqoonin bashuftanimada iyo ciidan xilligan burburka haytim nimankan sheeganay hadaysan ayaga wax dhacayni maxaa ku soo aadiyay xilliga burburka xagay ku maqnaayeen 16 sano oo dawladda Soomaaliyeed jirto oo carrada nabad ahayd xagay ku maqnaayeen dhamaan madaxweynaha jamhuuriyadda رئيس الوزراء دمان مسؤولين وحن وشيغينا إن أنا نشاتقود معتضى الصوماليات لغو دعين يضون لمن كان أي كسو بحيان مدحتويو أي كسو بحيان ويلك إراد ليرادو وكتر سنيه مدحتويو إن أنا شاركودنا لغو دعين ودرس كيجي ومعطو وداد عد واحد أكتين مال مسؤولين تقر واحد كجرتين حفيسيين يقولين بلسه شعبكينا وعد باتيسن يحي يان شاتقين لغو دعين قرقان نمان كاسي ملها عقلها شقايو محمد سياد بري xilligiisa la isma dhici jirin dhulka intuu ka noqso dad kala siin jiray caadi ahayd marka dawladda Soomaaliyeed dhamaan shacabka waxaan magan ugu nahay hadii gurigan taasi ku dhacdo dhamaan ummadda Soomaaliyeed waa ku dhacaysa waa dhibaato qabnaa shacabka hadaan nahay nin durdurinay nin lacag bixinay oo shaati gashan yaa shacabka Soomaaliyeed ee masaakiinta ahay ee dhulkooda joogay dhacay waa dadkii cadcadaay waa 0.5
dadka iska leh gurigan waa 0.5 shalayna awood mooryaana la isu sheeganay way ka badbaadeen ma maanta shaatiga dawladda lagu dhacaa dawladda Soomaaliyeed ha shicibkeeda mas'uuliyadaas iyada saaran tahay dhagiina ha taagnaado codkaasi maqla waa igu wallaahi waa igu billaahi waa igu tallaahi waa idin dhaartay gurigan waxa iska la reer Umar Sheekh Ali yaan marqaati ka nahay haddaan been sheego oo isinka Ilaahay aan ku dhaarta annaga ku galayna cadaab ku galayno marka waxaan soo kiciyay inaan xaq sheegno dariskayna gardarada lagu sameeyna aan ka hadno ninka iraad loo dhaho ee madaxtooye ka soo arooro ha naga qabto madaxweynaha jamhuuriyadda ha ka qabto masaakiinta maxkamadahan ee waxay ku shaqeynayaan aan la aqoonin xukun ma jiro dawladda Soomaaliyeed ha u digtoonaato maxkamadaha cadaaladda ha laga shaqeeyo alla cabsidiisna ha laga shaqeeyo intaas aan ku akaystay wassalaamu calaykum waraxmatullah gurigaan reer Cumar Sheekh Maxamed horta bilaw ma ugu magac dheeryahay Cumar Sheego markay Cumar Sheekh ya hooyadoodna waxaa la dhihi jiray ay dadka cad ahaayeen darisa ahayd laba lood saddexaad ya meesh laga soo dumiyay haddeerta waa u jeedaa haddeerta gurigan cidaasa u naqaana waa nala soo wada dumiyay iskuulna isla ahayn halkaana nala keenay ya ayakaaba horta na dhisteen waa ka dambeynaa ayakaaba horta na dhisteen marka gurigan cidaasa u naqaana cid kale uma maqla haddii ilaah laga baqo الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل كان وحن كعدينا يا أني هو أحمد حاج صوفي لبدان قولي كان إيه كان إلا إسكوران إسوداني درسان إهان إسكوران دقنين هل مالا نقل سودمي وحن نلسي وكانت شنو تضواتن شنو تضواتن كان نلسي تنوى سوبر لوجدي تنوى ورقتي لو عنشوري قرية أو بقول كشين لها تضواتن عفر تضوات شنتي كصوب واحد من الشيبيا تنوى عنشوري قرية dadkan waxayna haystaan 8 sano maalin ka dambeys waxaan oo imaado nin cusub marnaaga noo imaado marniman kala noo imaadaan marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay naga qabto sharcigana kale waxa waaye ninkii dacad uu xiisinaya dadka reer Cumarkay ilaa isku rarnaan daris ku hayn gurigeeni guriga ku dhaganay deganaayeen ana cadeynaya kitaab gacanta u gashanay inay gurigan ay leeyihiin haday isleeyihiin dadkan gibli cad way dhaca waxna dhici kar ma jiraan dulun dawladda Soomaaliyeed madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Khayre waxaan ogeysiinayaa dadkaasay iyo duqa magaalada Cumar Finish in dadkan ay rabaan inay dhacaan أنا كان أنقص عنه حق كله بإلهي وحن كبريا إنه ضدك التصف حقي أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رسولك عليه الصلاة والسلام والوحيين يقول له حق ولو كان مرن حقك وهذا هذا خراران عندنا حقنا إلى المكان إن درسنا هاي فأذكر الآن أهان إلا واجنا هذا الدرس أنا هاي ما واحد كده وحنا ما عيد واجباته أنا حتى عدنا لقوتي وعبد الله أنا الله كان وأنا لك حيستي سداد بلاد حنا كنت أجنا واجنا وجه ما وجه عثمان وإيمانا مرعينا سداد سنة مروحنا إيمانا هناك مركبه هو وكل خلنا إيمانس مركب حق إن لقى حد واي دولة الصومالية مدحونا فرماد حق حسنينا ضد كان هندايا ودفع يحكم معنا إلهي كانوا أنا بحال دين إلهي أوكي محكمة هذا أنت إلا مالكس أين جايين دولة حق حسنينا عدالة حسنينا مدحونا فرماجو أنت وهل السبب إن حق مدة وصاد عيان ومدة نجربان معنا إلهي كان حافظ حتى واحد على عاسب يروح إن محكمة السريع ورجله هواله دخل وأنت
ما إيه آخر ما أقدرنا وعمية إلهي سبحانه وتعالى هلا بخو إفكا ولا جتجا آخر الله صعدا ما عندني كتاكو ومدلله نيك خاتو أسقعد وجوه بدل ملها دورت بحق عسنينا إن مدة ماري إلهي كان وجعس من الصوم هذا أي جوري أي ليه حق وليه معلم قف محق وكان سنايا عندنا دعوين وح أنا أكن لو أعتذر هو أنت سيته عندنا دعوين وح ناصع واللعك والدولار وحنا دعوينا عندي ما أنت سديد سنة دعوين إلا هذا وجه قول ملخان ما دعيك تقول أذيك على هذا إن ما أرتاخف أو سوء أذيك ستي أذيك أدومته معقول ما أنا وجهي ما عندك إلى هذا تاجنا مدة صوماليات هنوسو دعيانو ومدها ولا دعويا ما أنا كستو تكنيك كان أنت كان دبعت أدوي وأنا هيستا مدة درسنا هاي درس كان نحواي إلى الآن وجود درسني مروح على كان دد يبسنا على كان أنا أقول يوم إسكجوجنا وحيا لين قولي في الصور محارتين قوليهان إيفوا ور أنا جاي دقن قوليهان مكاسد أنا بحكي الناس مرة سيدي وبحين دور أنا قولي عليه درجة دور جوري نوع معنا ضد دلالين مركز مدة إيمانك لها قليو حق لها قليو حول الإسلامات برعد ما والسعلان الله نجحته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يروح يسعى الجعل يسعى الجومي حافظة واحد دقنا 1904 كان صدقني marka ciidan dirsan hajirna marka waxa soo kornay daan naqaan waay dadkan waa farmada isku ran waay wixii baad isku ran anaga waxaan soo guuray xamar jab xaafadda waxa degan oo dhan waa reer isku ran ee reer xamar jab waay marka guriga maanta in la sheegto ya dad diaspora kiimaado dibada kiimaado boqorso wataan guriga baan kuma qaadanayaan baashaan anaga xaafadda degan jirnay dadkan oo dhan ilaa iyo waxa degan soo for from hadda aan deganay marka minaha hadoo sharci jiro oo dawladii Soomaaliya ay xukum waayeen dadkan sabar looga haystaan waxay haystaan sharci dhama haystaan dad diaspora ka yimaado oo boorso wataan oo doolar wataan guriga ma qaadan karaan mana qaadan doonaan hadday ku haminayaan guriga inay qaataan taas wax laga yeelaa mana yeelin marka dadkan sabar looga haystaan canshuurtay bixiyana haystaan فرمان اسمه فور فرمان نوى وحلو نسي هستان لا غورغا اسمان فرمان غورغا توان وهاجي توان كاس حبرت قلت ايوه اللي جري كل دوسان اسكول كلو ادني waa dugsigaas la aadnay ilaa hadda asal naqaana dadaan wada xirino waay dadaan 50 sano dirsan waay farmasona farnaaw ma faateen marka dadaan magaalada deganeen oo ingiriis ka yimaaday oo boorso wataan in guriga la sheegtaan ma aha waxa xasab rooxta ma haystaan waraqado xuma faarsa iyo dokumenti ay wataan marka dawladda waxa ka codsanaynaa ama farmaajo iyo qayrabo in arrintan soo fargashaan gurigaan wallahi kacdoona kicdoona waxaan dulmi shalan ka dagaalanay maanta yaa la soo celiyay dulmi shalan ka dagaalanay maanta in la soo celiyay maaha dad diaspora ka yimaadaan oo guriga ka sheegtaan xaafadda ma wada degan dadkan guriga ku haysto xaafadda ma wada deganabo dad waxa meelaha deganaa jira ma wana qaana baanay laakiin those people we know each other wadaan muddo deganeen waay dus quraan isla aaday kana kula jiray cidaan naqaana reer umarkay iyo cidaan laba qod dirisa wadanahay marka waxaan ka codsanaa dawladda dadkan sharciye haystaan warqadaha haystaan in sharciga fiiriyaan kuwaas waxaan in la fiiriyo meeshan ku soo cadaalad darro jirto corruption intaan maxaa ugu jirtay cidaan ayo la jiray istaan ila hajireen meesha ciyaar ku xirnaa jireen dad naqaano waay جلاتة لو يقنا هذا كان ضد حوالي معروف أهواي وضد مقع الله وارجع عمر كي وفرمس كورن واي ما فاتن بل ما شاء الله حد جدا والله لا قيم واي ضد حمر جك سجورين ضد سجورين سكورين وحكي المدقن ما شاء واحد سجولتي وحمر كي بقى لها قف كستر قف كلو يقنا بركو حارمنا إن شاء الله كلام حاضر dadka diaspora iska aadaano guri aan fara kala baxaano hadii mar dambe yimaadaana gacana saar doona wallahi kamana ka yeelo doona wabila tawfiiq bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxa la yiraahdaa macallin muqtaar sheekh axmed la yiraahdaa aniga xaafadan ayadoo xataas guri aan ku alina soo degay laakiin dadkii qaabsay u soo degayso qayb u soo degaysay ciidan waa isbaranay berigaas ilaa hadda yaa ciidan anigu guraan u qeyn qof ku qoran xataa ma aqaan laakiin ciidan heer xaaji guriyaan aan ku arkaan
dhowr sano ay deganaayeen dacwadan waqti dhow ay soo gashay arada waa dhici kartaa in oo maaragtay dhul waa la isku qabsan karaa dadku isku qabsan karaa laakiin aniga waxaan ogahay ciddaas inay leedahay ciddaas inay deganaayeen guriga ciddaas inay gurigaas deganaayeen intaasoo sanan ay deganaayeen aniga aan halaasaan ogahay adiga أنا 34 سو دقة لكن 35 meelahaas inay eedaan jeclaa dad sababtoo sax waayba meelahaas أنا 34 سو دقة meesha مسؤول حتى ما قبل دور كاس aadi jir دور مسؤول حتى ما قبل cidaan 35 ku soo dego marka aniga waxaan ogahay cidaan inay gurigan ku dhaqmi jirtay ay joogi jireen oo yarkii wiilka uu ku dhintay oo haddana aabiis ku dhintay intaas ay deganaayeen aan ogahay dacwadan mugdan baan maqlay بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحن جونا جورج رهير الشيخ رهير عمر الشيخ علي رهير عمر كي جورج أنا وحكا سيدي ده بوكيل إيه وكشين رهير عمر كي ورقد يقول وكشين واكنا ورقد أسكال إسوق ورقد هو سوبر لوجو دي أنا أسميني أوكي ده دوكومنتي جودي أنا جا أوهايو ما فهمت maanta waxaan marqaati keenay markii maxkamad oo xiran oo rafaan qaado weynay wax rafaan ma jiraan maxkamadii ma shaqeyso ma fahantay marka xaqaas dadkaas masaakiinta dhulka waa leeyihiin dadka dariska hay kulli maanta way wada hadleen guriga nagu dhagan waxa iska le cid iska la soo guureen meesha la yiraahdo isku raran ciidan kale waa ogeed culimadii way joogtaa marka aniga waxa waay dad nimanka hadda dooda waxay ku doodeen cidaas ayaa guriga dhacday laakiin anigu ma dhicin mana dhacayno waa kana warqadii waa tana warqadaas waa warqadii wakaalada oo li soo wakaashay ay soo wakiishay reer Cumarkey ma fahanteen super logoodi aniga u haayo reer Cumarkey Khadiijo Cumarkey walaalkay Cabdirasaaq Abdullaah Cumar ayay ilmo u dhashay anigu ma degin guriga xataa xaafad kale ka deganahay marka waxaan u sheegaynaa dawladda sharafta leh inay xaqa noo soo dhiciso waxa intaasoo darisa islaamaha kulligood marqaati ay dhaar ugu mareen ayagoo shaqo ay isku lahayn jira darisnimo iyo alla dartiisa ay ahayd labada cidood way hadleen guryihii waa kaasaa waxaan ka baryaynaa oo mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaynaa duqa magaalada inuu guddi noogu soo diro xaafadda oo xaqa la soo saaro markasta ha loo hilisho masaakiinta xaqana garab ha la siiyo wabillahi tawfiiq